Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka telefishinka iyo raadiyaha hamikooda ugu doorka roon ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii uu sarreeyo saamaxo dowladda federaalk oo mar kale dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada dalka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo hal qodob ka dalbaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Madaxweyne Waaro Itoobiya kala hadlaya xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyne. ciidamo ka kala socda militariga Soomaaliya qaybta 17aad iyo 22aad oo gaaray deegaano shalay ay ku dagaalameen maleeshiyada halkaasi wada dega oo simada gobolka Hiiraan. Qodobka dibadda warka telefishinka raadiyaha Hami oo idin hayana waxaa ugu dooron dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka ee COVID-19 oo dib u soo laba kacleeyay. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka telefishinka iyo raadiyaha Hami. kusoo dhawaada mar kale qodobadaasi oo faahfaahsan oo idin sii ambaqaadaan uga Cabduqaadir Daawud. Nima isniina taariikhdu ay ku aastaysan tahay 8 bisha 6 sanada 2020. aynu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dowladda Itoobiya kala hadlaya xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyne sida uu faahfaahinta qodob-wareedkaasi noogu eegayo wariye Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuni. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay qorsheynayaan in la sameeyo siyaabo dhowr ah oo lagaga hortagayo fatahaadda ku soo laabatay ee uu sameeyo webiga Shabeelle. waxa uu sheegay in webiga uu u baahan yahay qodis iyo in la sameeyo buundooyin dhowr ah si looga hortago fatahaadda sababa khasaare hantiyadeed mid nafeed iyo barakac boqolaal ka mid ah shacabka degan magaalada Beledweyne. sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in muhiim ay tahay in dowladda Itoobiya lagala xaajoodo ka hortagida fatahaadda maadaama webiga gobolka Hiiraan mara uu uga yimaado dhanka Itoobiya. webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa sanad waliba waxa uu sameeyaa fatahaad sababa in dadkii ku noolaa gudaha magaalada Beledweyne ay u barakacaan deegaanada duleedka ka ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuni, raadiyaha iyo TV-ga caalamiga Hami, Beledweyne. mahadsanid Ibraahim. warar lagu kalsoon yahay warbaahinta Hami FM ayaa sheegaya in dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada dalka oo muddo dheer hakad ugu jiray saameynta COVID-19. duulimaadyada Soomaaliya ayaa lagu waday inay si rasmi ah u furmaan maanta oo Isniin ah 8 bisha hase yeeshee waxaa dib loo dhigay ilaa iyo toddobaadka dambe sida ay noo sheegeen xubno xogagaal ah oo ka tirsan wasaaradda duulimaadka. shalay galab ayaa warqado loo diray shirkadaha duulimaadyada dalka taas oo lagu sheegayo inay dib u dhacday furitaanka duulimaadyada dalka. sababta keentay dib u dhaca ayaa lagu sheegay cilado farsamo islamarkaana la xalin doono maalmaha soo socda sida aan kasoo xiganay xubno xogagaal ah oo ka tirsan hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. muddo ka badan 2 bilood waxaa hakad ku jira duulimaadyada Soomaaliya. kulan qaatay saacado una dhexeeyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa aad looga hadlay arrimaha Soomaaliya. mas'uuliyiintan ayaa isku soo hadal qaaday arrimaha ammaanka, doorashada, khilaafka siyaasadeed iyo arrimaha COVID-19. inta badan qodobada ayaa la isku afgartay marka laga reebo arrimaha doorashooyinka oo aan weli la cadeynin sida ay u dhici doonaan. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha golaha shacabka u sheegay in qorshaha doorasho qof iyo cod ay tahay riyo aan suurtagelaynin 2021 kana loona baahan yahay qorshe kale. mas-uuliyiintan oo ka socday madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in ay waajib tahay in dalka ka dhacdo doorasho waqtigeeda aan kadib marin hufan oo xor ah. haddii ay dhici weysana ay sheegeen in dalka uu lugaha la gali karo dhibaatooyin culus. xog ay yeeshay warbaahinta Hami ayaa sheegaysa in sidoo kale mas-uuliyiintan ay dalbadeen in laga qaybgeliyo saamileyda siyaasadeed nooca doorasho ee dalka ka dhici karto. madasha xisbiyada ayaa la filayaa inay soo saaraan war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan qodobadii ay kala hadleen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaase ka horeeya kulan kale oo ay leedahay madasha xisbiyada qaran. qodobka ugu doorka roon warka caalamka ee telefishinka iyo raadiyaha Hami ayaa waxa uu noqonayaa dagaalka Mareykanka iyo Shiinaha ee la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus sida uu kusoo bilowday ayaa mar kale soo laba kacleeyay kadib markii uu senator ka tirsan Mareykanka uu Shiinaha ku eedeeyay inuu isku dayayo inuu hor istaago dadaalada cudurka daawo loogu raadinayo. Reichstag wuxuu sheegay inuu cadeymo arrinkaasi muujinaya ay ka heleen laamaha sirdoonka ay leeyihiin balse uu ku gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo.
Beijing waxa ay shaacisay dukumeenti ay ku sheegtay cudurka marka uu dalkeeda ka dilaacay xogta inay Mareykanka la wadaagtay 4 bisha January. dadka fayraskan corona dunida oo dil ugu dhintay waxa ay tiradooda maanta oo xada ay kor u dhaaftay 400 bilyan. gudahaan warkii aad ka daawanaysan telefishinka iyo raadiyaha Hami daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudro inta ayaan ku soo afmeerinaa. intaan warkan warkiisa xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga teginaa sida iyo amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.